بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله maanta waxaan joogaa meel yahda caado waa 19 maaris 2022 ilaahay baa mahad iska leh. runtii waxaan la kulmay gabdhaha kan awrtooda wata waxa weeye runtii dadka dibadaha jooga waxa weeye in badan oo ka mid yihiin markay soo xasuustaan baadiyihii iyo xoolihii iyo rag kale oo shaqeynaya la arki jiray. hadda raggii waaba dumarkii baa shaqeynaya sida wax kale alxamdulillaah rabbil caalamiin. hadda gabadha wajigeeda aqarso waa sax ku haboon tahay, laakiin muhiimku wuxuu ahaa waxaan ka waday un gabdhihii waa kuwa shaqeysanaya iyaga wallaahi qofkii intaa shaqeysanaya tukanayana shantii sagaal haystaaba oo Soomaaliya joogay waxa weeye waa alxamdulillaah rabbil caalamiin. laakiin waxaad ogaataan dadkiina dibadaha raaxa ku jirdhaan dadka ka soo warqaba gabdhahaas dadka gabdho badan idinka la mid ah xoolihii iyo reerkiiba ku haya marka ka soo warqaba oo wuxuu soo dira oo biyaha u dhaamiya oo saado gabdhaha dibadda shiray hadda anagu biilka badan biyaha soo dira khayr Allah siiya gabdhaha xariista ku hadhay marka wallaahi aad baan u farxay marka arkay gabdhaha dhaanka wata markaan arkay macnaha iyo sida loo kala warlaayay ragga qaarkiisna ay iska baqayilayaan haday rabaan ma garanaysa iska baqayilayaan ama meelaha ku lunsan yihiin ama qaarba khamro barteen dawlad khayr qabta Allahna siiyo gabdhahana siisa oo raggu ay shaqadooda qabsadaan saas Allahna siiyo walaal ka sii daa iska socdo markaa iska soo khayr Allah siiyo waa kaaga walaal asdaankeeda waa taa qof nool weeye ilaaha baa mahad iska leh يا gabdhahani dibadaha joogayna hooyo qada soo kari baa lagu kari laayay kuwa dibadaha joogay hooyo qada soo kari baa laayay walaal khayr baa Allah siiyo walaal ilaahay baa siiyo Allah barakeeyo waad ka soo warqabeynaa insha Allah ayo walaal